xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambeyn iscazilaya uma turaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed laakiin se waxa la sheegay in tani ay ku imaanayso cunaqabateen adag oo xubnaha Mareykanka ay saareen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale dawladdiisa waxa dhinaca kale la sheegayaa in xubnaha beesha caalamka ee xalana jooga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay isku raaceen in laga jaro kabkii miisaaniyadda iyo sidoo kale dhaqaalihii iyo kaalmadii shisheeyaha ee Soomaaliya ay ku tiirsanayd tan iyo markii dawladnimada ay naga burburtay sanadkii 1991 xogtii ugu dambeysay ayaa saaxiibayaal barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud shacabka Soomaaliyeed ayuu la hadlayaa saacadaha fooda inagu soo haya ninkii lahaa muddo kororsi hal sano ayaan sameysanayaa ninkii lahaa xaniyaha ayaan qabanayaa siyaasiyiinta mucaaradka ninkii lahaa kursiga waa iska sii joogaya oo cid iga kacsan karta ma jirto oo hub iyo waxaan heystaa ciidamo xoogan oo tayo leh hadda waxa la leeyahay dhaqaale dartiis waliba dhaqaale la'aan ayuu isku casilayaa oo uu isaga tagayaa xafiiska ugu sareeya ee dalka aaway lacagtii uu dhacay ama xaraashay intii uu joogay talada dalka waa lacagtii malaayiinta dollar ahayd ee dhulalka danta guud laga bixiyo ee ganacsatada Soomaaliyeed loogu saxiixay barnaamijkan ayaan idinku soo gudbin doonaa xasan sheekh maxamuud waxa uu marayaa heer uusan isfurdaamin karin waxa uu marayaa heer uusan waxba ka qaban karin dhaqaalihii laga jartay Soomaaliya oo xubnaha beesha caalamka ay yiraahdeen Soomaalidu waa inay heshiisaa kadib ayaan soo fasaxinaa ama bartiina ayaa joogaysaan waxa dhinaca kale barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee JSB oo ku dhawaaqay in aadan madoobe ay u garteen inuu noqdo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ninkan waa murashax oo JSB ah oo halka laakiin waxa yiraahdeen waxaaba u garanay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya inuu noqdo waaba isagii oo guuleystay oo kale oo la sii og yahay inuu haddaba ku soo baxay doorashada madaxtinimada koonfur galbeed nin doorta maxaa u dhahdeen dadkana maxaa u dimbaajiseen ayaa taagan barnaamijkan iyana saaxiibayaal idinku soo gudbin doonaa geesta kale waxa eegeynaa amaro culus oo lagu soo rogay booliiska Muqdisho maxaa soo kordhay oo ka dambeeyay waan ka dabageenayaa safiirka UK ee Soomaaliyana waxaan ku shaqeeyaa buu yiri cabsi iyo sidoo kale qatar joogto ah haddaba Soomaaliya miya halis markaasi xoogan ay ka jirta waan soo qaadan doonaa marka la soo dhawo muuqaalka la garay si share garay lisii wadaag saxibadaada aad iyo aad ayaa kaaga mahadnaqayaa la socodka iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena marka hore waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo kaliya 14 cisho ay kaga hartay muddaxileedkiisa sharciga waa 4 sano ee loo doortay 15 May sanadkii 2022 ayaa hadda la tilmaamayaa in uu aad u ildaran yahay isla markaasina aad u rafaadsan yahay waliba aad uu la daalaadhacay dhaqaale la'aan baahsan oo dawladdiisa ku habsatay maadaama cunaqabateen adag dawladda Mareykanka ay saartay Soomaaliya oo dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale kabkii miisaaniyadda ee Muqdisho ay ka heli jirtay Washington Donald Trump madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa waxa la tilmaamay inuu saxiixay sharci ay soo gudbiyeen Congress-ka Mareykanka kaasi oo dhigaya in Soomaaliya laga jaro miisaaniyadda sidoo kalena dhaqaalaha laga xanibo sababo la xiriira in siyaasiyiintii mucaaradka iyo sidoo kale kuwii dawladda heshiin la yihiin oo hubanti la'aan dalka cagta uu saarayo sida arrimaha ammaanka iyo sidoo kale siyaasadda waxa yiraahdeen dhinaca kale xatooyo xoolo dadweyne baan ku haysanaa madaxda ugu sareysa ee dalka iyo wax isdabamarin iyo waxaan ku haysanaa bay yiraahdeen laaluush waxa ay dhinaca kale ku haystaan xawaaladaha Mareykanka oo markaasi la soo mariyo lacag loo soo diro Soomaaliya lacagtaasi oo mararka qaar sifo sharci darro ah dalkaasi Mareykanka looga soo diro oo dabcan dhinaca kalena waxa la sheegayaa lacagtaas in mararka qaar loo diro kooxaha argagixiso ee Soomaaliya ka dagaalama sida Daesh iyo sidoo kale Al-Shabaab dhinaca kale waxa la sheegayaa in madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump wacd uu ku maray in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka shaqayn doono wixii uu sameeyay intii uu xafiiska joogay ka soo bilaw 15 May sanadkii 2022 ku keen ilaa iyo xilligan xasaasiga ah oo muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka harsan tahay 14 biri oo kaliya xogaha xasaasiga ah ee hadda aan helayno waxa ay tilmaamayaan in Mareykanka wacd markaasi ay ku mareen in aysan fasixi doonin dhaqaalahan ilaa Soomaalidu ay ka heshiiso isla markaasina doorasho laga galo oo madaxweyne bedelo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga helo ama isaga ha ku soo laabto si markaasi dastuuri ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh hadda waxa la sheegayaa ninkii lahaa muddo kororsi hal sano ayaan sameystay inuu leeyahay waa iscazilaya oo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka iyo dalka iyo diinta baan u turayaa
oo dhinaca kale waxaan ka hortagayaa qalalaasi iyo foodo amni oo mucaaradku ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iscasilaadiisa waxaa la sheegayaa inaysan ku imaanin baryo iyo sidoo kale tugmo laakiin ay ku timid pressure ama cadaadis dhanka xalane laga saaray madaxweynaha iyo sidoo kale Mareykanka oo dhaqaalihiisii la haray iyo sidoo kale kabkii miisaaniyadda Mareykanka dhinaca kale waxaa la sheegayaa in uu aad uga carooday dhaqaalihii loogu talagalay ciidamada ay gacanta ku hayaan ee danab oo la musuqmaasuqay danabna waa la socotaan oo xitaa raashinkii loogu talagalay ayaa la iibsaday oo suuqyada la geeyay waliba black marketka ama suuqyada madow ayaa lagu kala tuurtay raashinkii ciidanka danab ay lahaayeen marka wax badan oo isbeersaday ayaa Mareykanka caradan ka keenay ayaa la leeyahay dhinaca kalena waa la socotaan oo WFP baqaar ay ku lahayd dekada weyn ee magaalada Muqdisho ayaa wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda ay jabsatay waxaana la sheegay halka iyo wixii ku jiray in la bileeqaystay oo ay ka faa'iiday dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baqaarkaasi dawladda waxa lagu qasbay inay dib u dhisto waana ay dhistay dabcan oo hadda baqaarkii sidiisii ayaa lagu soo celiyay laakiin maxay kuugu taalaa wixii ku jiray oo dhan hadda waa faaruq taagaya oo wax ka jira malaha marka Mareykanka waxa la leeyahay dhacdooyin badan oo isbiirsaday oo dalka ka dhacay tan iyo markii Xasan uu la wareegay xukunka matalada dalka ayaa ka cariisiyay oo kuleelka markaasi ka keenay waana ay ku saxan yihiin bay leeyihiin qobarada darsa arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha diblomaasiyadda bal wixii ku soo kordhay wararkeena dambe ayaa saaxiibayaal kugu soo gudbin doonaa sida ayaa u aragtaa Xasan Sheekh in dhaqaale la'aan dawladda ku habsaday darteed uu isku casilayay isla markaasina dhawaan shacabka Soomaaliyeed uu la hadli doono adaba aragtidaada qaybta hoose ee faalida lagu gudbay commentiga inuu la wadaag geesta kale haddii aan eegno xisbiga cadaaladda iyo sidoo kale wadajirka JSB ee uu hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay musharaxooda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya JSB ayaa waxay shaaciyeen in Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo haatan uu gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay u gorteen inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Koonfur Galbeed xisbiga ayaa hore Aadan Madoobe uga reebay musharaxiin gudaha xisbiga kula tartami lahaa kuwaasi oo ah siyaasiyiin miisaan leh iyadoo hoggaanka xisbiga oo ah madaxweynaha Soomaaliya uu ku qanciyay ballanqaadyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xilal kuwii ninkan la tartamayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cali Xoosh oo ka hadlay munaasabadda shaacinta musharaxnimada Sheekh Aadan Madoobe ayaa dadka reer Koonfur Galbeed ugu baaqay inay doortaan Aadan Madoobe ilaahay mahadi weeye in ummadda Soomaaliyeed iyo idinkoo isku duubanba loo garto madaxweynaha Koonfur Galbeed hal doorto ninka ku haboon oo ah madaxweyne Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayuu yiri wasiir Cali Xoosh villa Soomaaliya oo galaangal xoogan ku leh doorashada Koonfur Galbeed ayaa muddo ka shaqeynaysay sidii maamulkaasi loo geen lahaa shakhsi daacad ah waxaana Aadan Madoobe loo arkaa guuleystay la sii saadaalinayo maadaama uu haysto taageerada hoggaanka federaalka iyo garab kamid ah siyaasiyiinta deegaanka Aadan Madoobe ayaa sida muuqata wadada loo salaxay iyadoo villa Soomaaliyana ay ka reebtay Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah saaxiib aad ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida aan horey u baahinay madaxweynaha ayaa agaasimihii hore ee villa Soomaaliya Xuseen Sheekh ku qanciyay in uu tartanka uga haro Aadan Madoobe arrintan ayaa tartanka ka dhigaysa mid aan u muuqan mid furan gaar ahaan maadaama Baydhabo ay hadda ku jirto marxalad kala guur oo dawladda federaalka ay saameyn xooggan ay ku leedahay bal wixii soo kordhay wararkeena dambe ayaa saaxiibayaal kugu soo gudbin doonaa ugu dambeyn maxay yihiin amarada culus ee lagu soo rogay booliiska magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareeyo Guuta Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano ayaa gudoomiyay shirkii toddobaadlaha ah ee hoggaanka qaybaha fadhiyada iyo sidoo kale talisyada dekada iyo garoonka diyaaradaha kaasi oo si gaar ah diiradda loogu saaray xaaladda guud ee amniga dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho shirkan oo ka qabsoomay xarunta taliska booliiska ayaa lagu falaqeeyay warbixino kala duwan oo la xiriira howlaha amniga ee toddobaadkii la soo dhaafay iyo sidoo kale xaaladda guud ee sugidda nabadgelyada caasimadda iyo sidoo kale nawaaxigeeda kulankan waxaa sidoo kale ka qayb galay saraakiisha saldhigyada booliiska gobolka Banaadir kuwaasi oo soo bandhigay xog ku saabsan xaaladda amni ee degmooyinka iyo sidoo kale dadaalada socda ee lagu xoojinayo amniga bulshada intii uu socday shirkan waxaa si gaar ah xoog loo saaray muhiimadda ay leedahay adkeynta amniga baraha kontaroolada ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo ah meelaha ugu muhiimsan ee laga ilaaliyo gelitaanka iyo ka bixitaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Diyaano ayaa saraakiisha waxa uu faray inay si buuxda u dhaqan geliyaan habraacyada amniga ee horey loo dejiyay isla markaana ay muujiyaan feejignaan dheeri ah oo ku wajahan xaaladaha isbabeddelaya
sidee ayaa u aragtaa marka si guud aragtidaada nala wadaag muuqaalka la garay sii share garay la sii wadaag saaxiibadaada aad iyo aad ayaa kaaga mahadnaqaya la socodka iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena markaana ila daawo muuqaalkan ciidankaas ma hayeen ciidanka oo dhan ma dumisay hal ciidana dumiyay hal nina wuxuu isku leeyahay cagafta iyo ciidanka wuxuu leeyahay kambaniga billaahi calaykum ligaas buligin wax asmaare wali waa lagu jiraa wax gaar ma ah mas'uuliyadana saaran aan dareenay waxaan rabnaa dawladuna inaysan naga dumin sharci daradana la zuuliyo arintaas waxaan noo agyaala codsiga waxa shacabka Soomaaliya waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka amniga ciidamada qalabka sida waxaan ku amaanayaa geesinimada iyo nafurkan ku amaanayaa runtii waxay muujiyeen dulqaad iyo dadnimo laakiin koox gaar ah oo madaxweynaha siyaasiyiinta barashar gareysa soo bax dadkaas waa danley ciidan qaran waa ka baxeen waxay isu bedeleen shaqaale waxay isu baxeen company isu bedeleen waa ogtiina oo maleena qofka marka guri laga duminayo yaa ka dumiyay guriga ciidankaas ma hayeen ciidanka oo dhan ma dumisay hal ciidana dumiyay hal nina wuxuu isku leeyahay cagafta iyo ciidanka wuxuu leeyahay company-ga billaahi calaykum ligaas buligin wax asmaare mas baanka sheegay arintaas ya madaxweynaha u shaqeeyaa dawladda sideeda waxa ogaatiin waxyaabaha mas'uulka ka tahay waxa kamid ah amniga waxa kamid ah caafimaadka waxa kamid ah waxbarashada waxa kamid ah midnimada waxa kamid ah qofka inuu helo meel uu ku haydo oo u qalanta dastuurkeena ugu qaranta hadda dawladda laga marabo dadka shacabka Soomaaliyeed dadka fiican weligeed ma arkin weligeed ma aragtan iyagu caafimaad warsaay ma warsadaan ama waa iska dhintaan ama iyaga isdaaweeyay waxbarasho ma warsadaan guriga loogu yimid marka ciidanka ka shaqeynaa inay qof muslim ah oo miskiin ah islaam waayeela ilmo agoona haysata oo miskiin inay barakiciyaan wixii dastuurka iyo sharcigu uu talagalay ma ka shaqeeyaan kama shaqeeyaan arintaas waxay dhaawacaysaa saboodkii taageerada ciidanka loo hayay waxa leenahay ka digtoonaada arinta kale waxa waaye maadaama waqtiga uu soo dhawaanayo waxaan la soconaa dhaqdhaqaaq ciidan inuu jiro siyaasiyiinta iyo shacabka labadaba caburintiina waa bilaabatay waa la idin sheegay gabadha Caasha Macalin iyo labada wiiloo xiran iyo dad kale oo hadda magacadooda aan meeshan ka sheegay waa xiran yihiin dhaqdhaqaaqa magaalada Muqdisho waxaa lagu soo rogay culays fara badan gaar ahaan dadka soo aaday dhinacan waxaa lagu soo rogay culays madaxweynaha shala markuu mucaaradka ahay aad u qayli jiray waxaas waa dhibsi jiray madaxweynuhu maxaa isbedelay bal noo sheeg maxaa isbedelay inaan fahmnaan rabnaa bis annaga dad waaweyn oo dalkan inuu dhismo oo meeshaan soo gaaro wixii tabartooda ka soo qabtaanna haddana waa u taaganna mas-uuliyaddana waxaan ugu istaagna inaysanna hurayna aragno waxaan ku hurayn maxaa la yidhi habaar laguma darsado yacni annaga hadda xilli aan wejiga qarso karno saraxatan lama joogo ee qof dhib jecel ma jiro labada isbuucoo lasoo dhaafay shaqaa lagu jiray weli waa lagu jiraa wax gaara ma ah mas'uuliyadana saaran aan dareenay waxaan rabnaa dawladuna inaysan naga dumin sharci daradana la zuuliyo arintaas waxaan noo agyaala codsiga waxa shacabka Soomaaliyeed dulmiga haddii la sii daayo maalin aan wax laga qaban karno tagaaya waxa la dumi kara laakiin hadda waxa soo qadara tin cajiil laga bixiyo kale inaan iska bixin haddii aqligooda u soo laabto oo ay nabadda qaataan wadahadal ogolaadaan doorasho ogolaadaan ahlan wasahlan laakiin hadda qaabkay u socdaan uma eka waxaa la rabaa ayadoo dhibkoodana soo gaarin inaan bannaanka isgeyno iska keyno taas waxay ku dhici kartaa in la helo taageerada loo baahan yahay in la helo annaga waa ogtihiin sacrifice aan u sameynay gaar ahaan dadka la barakiciyey saldhigga waxdhigile waxay ka dhacaa ogtihiin dadaa ku dhintay hantiya mataqaana ku burburtay nafteena riski u gelinay taas maxay ahayd inaanan ka leexanaynin ka laabanaynin inaan garab istaagno dadka u baahan taageeradan haddii qof marka uu ku fikiro inuu ciidanka kugu bajiyo si uga baqdo asaga meesha iska joogo arrintaas arrin sax ma ah walaal badan yahay haddaan barakicin jiri lahayn haddaan caburin jiri lahayn haddaan dhulbab jiri lahayn si kalaaba looga hadli lahayn laakiin hadda lagama aamusi karo waajib qaran waaye waajib diini waaye
culimada taa rabtiin weydiiya meel u banaynaysa dowladdu inay dhul iibiso oo inta ganacsata ka gado ay tiri adigu gado dadkana bannaanka ku tuur ma jirto sharci islaam sharci dadka u qoran ma jiro sida ragga iga horreeya sheegeenna arrintan waxay taabanaysaa xuquuqul insaanka waxay u taabanaysaa dad in la barakiciyo waa qodob ka mid a yani qodobada dembiyada ka mid ah oo xuquuqul insaanka ay ka mid tahay diinta islaamkana qof inaad barakiciso oo cabsi geliso oo gurigiisa ugu tagto waa dembi